tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay ayaa cudurka shuban biyoodka waxa uu geeriyooday 14 ruux halka uu cudurka shuban biyoodku uu soo ritay in ka badan 50 bukaan oo la dhigay cisbitaalada ku yaala Mahadaay iyo Jowhar. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa kormeera bukaanada ku jira cisbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. Dr. Umar Sheikh Maxamuud oo kamid ah dhaqaatiirta cisbitaalka Jowhar ayaa ka warbixiyay tirada bukaanada geeriyooday iyo bukaanada la soo gaarsiiyay cisbitaalka. Haddii aan warbixin inaga siiyo xaaladda shubanka ku soo korortay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulooyinka Mahadaay iyo Jowhar iyo xaafadaha hoos imaado shubanku aad buu xaaladiisa u daran tahay sida la socotaanba hadda 55 ruux ku dhawaad ayaa la jiifto cisbitaalka gobolka. dadkaas oo ka kala yimid tuulooyinka ku hareeraysan gobolka maxaa la yiraahdaa degmada Jowhar iyo Mahadaay gaar ahaan dadku ugu badan waxay ka imaanayaan Diinlaawe iyo Buurfuule. waxa kale oo hadda saaka ilaa iyo xal ku soo kororay dadka imaanayo magaalada Jowhar dhexdeeda gaar ahaan Kulmis iyo Buula Sheekh iyo qaar ka mid ah hanta wadaga ay ka imaanayaan sida marka hadaan dareemayno xaaladdu way sii baahaysaa. dhimashadu waxay inta badan ku badan tahay meelaha dadka ay ka imaanayaan meel aad u fog aan meelaha qaar kood la tagi karin sida Diinlaawe oo kale. tirada guud ilaa hadda 55 ruux ay marayaan. dhimashada tuulooyinka Diinlaawe ugu badan tahay tirada inkastoo warku dadka kala duwan yihiin laakiin ilaa 13 ruux 14 ruux la xaqiijiyay inay ku dhinteen. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha in daawo lala soo gaaro cisbitaalada la dhigay bukaanada uu soo ritay cudurka shuban biyoodka. waxa maalmahan bilowday in shuban biyood ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan labada degmo oo Mahadaay iyo Jowhar dhexdeedaba in tuulooyinka ku dhadhow. marka waxaan soo booqanay isbitaalka jiifaan dad aad u fara badan. maamulka isbitaalka oo la shaqeyn waxay noo sheegeen in culeysku uu maartay oo hadda taagay inuu ka fara badan yahay ayaga inay dheeriin ay marayso dhimasho xoogaa ay dhinteen. marka waxaan rajaynaynaa haddii uu yiraahdo wasaaradda caafimaadka iyo in allaale inta quseysay hay'adaha iyo inta waxaysato Soomaalida oo Ilaahay wax siiyaba in gurmadka xaaladda aad maartay ku soo korortay gurmadkeeda la bilaabo. xilli cudurka shuban biyoodka uu ka jiro tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada degmooyinka Mahadaay iyo Jowhar ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ku adkeeyay dadka ku nool degmooyinkani inay ka shaqeeyaan nadaafadda si looga gaashaanto cudurka shuban biyoodka. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.